walaalayaal caawa waxaan doonayaa hadduu ilaahay idmo inaan isyaro dul taago mowduuc xasaasi ah leh khatartiisa. waa barnaamij aan ugu magac daray alxubu sawdaa ama jacaylka madow. waa cudur, waxaan ka hadlayaa caawa waa cudur, waa bacteria, waa virus in badan oo dhalinyaradeenii teenage-ka ahaa, muraahiqiinta aanan weli guursanin ee iminka adduunka u cusbaa doonayeyna in ay samaystaan mustaqbal ay la ildaran yihiin, ay la jiifaan, qaarna ay yihiin bukaan jiif, qaarna bukaan socod ay yihiin. in badan oo waktigoodii qaaliga ahaa ra-sumaalkoodii ay ku burburiyeen, xoog iyo xoolo waxay lahaayeen ay ku baabi'iyeen oy ku jejebiyeen. waa cudur aan ugu magac daray jacaylka madow ama alxubu sawdaa. in badan oo waalidiinteena ahna ma keegareeyaan, waxba lama aha, waa way fududaystaan. caawa waxaan doonayaa dhalinyaradan, ilaa mas-uul baynu ka nahay, waa walaalaheen, waa ilmaheenii, waa saaxiibadeen, waa wiilasheenii soomaaliyeed. waanu u baahan nahay inay si dhaksale ku aasaasaan guri, inay ubad yeeshaan, inay dantooda iyo dadkooda iyo dalkooda ay wax u qabtaan. waa xooggeenii, xooggii uu sugayay waddanka weeye. in dhalinyaradan runtii aan wajahno oo aan tawjiihino khatarta uu leeyahay jacaylkan madowna runtii in aan uga degno. walaalayaal, barnaamijkan jacaylka madow waxaan ka hadlayaa caawa. marka hore, qodobka hore waxa weeyaan maxaa keena in wiil iyo gabar ay isjeclaadaan, xiriir yeeshaan, ay iska helaan, ay iscajabiyaan, ay isku qancaan? maxaa keena marka hore jacaylka madow? maxaa keena, maxaa sababa? waa marka labaad, islaamkeena muxuu ka qabaa in wiil iyo gabar ay yeeshaan xiriir wada noolaansho ah, wada dhaqmid ah, amoore inay wada jilaan 2 sano, 3 sano, 4 sano. islaamkeena muxuu ka qabaa? waxaan kusoo gabagabayn doonaa hadduu ilaahay idmo. fama alcilaaj? dadkan xanuunsan, dadkan buka ee cudurkan madow qaba ma la daaweyn karaa? noloshoodii wanaagsaneed ma loo soo celin karaa? waddadii ay ka leexdeen ma lagu soo celin karaa? ilaahay waxaan ka baryayaa inuu tawfiiqda i waafajiyo, kelmadda wanaagsanna uu i waafajiyo, xaqana uu ku sugo carabkayga. dhalinyarada xanuunsan ee jacaylka madow qaba, iyagana waxaan ilaahay uga baryayaa haddii ay hadalkaygan maqlaan in ilaahay qalbigooda uu geliyo kiisa wanaagsanna ay qaataan. walaalayaal, marka hore xiriirkan waxa keena, wiil iyo gabar inay xiriir samaystaan waxa keena oo ugu horeeya waa aragtida. wiilka inuu arko gabadha, gabadhuna ay aragto wiilka, in lais arko. arkidaas aad arkaysaana ee lais arkayo, islaamkeenu wuxuu ka sameeyey sharci baa ka yaalla arrinka isaga ah. ma aha in intaad wax iska fiirisid, aada iska aragtid, isaga noqnoqotid maantoo dhan har iyo habeen inaadan indhaha ka qaadin. afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan wa annakum ilayna laa turjacuun? war ma waxaad moodeen insaan yahow, gabadhan iyo wiilkan addoommadii allow idaylkiin, ma waxaad moodeen in ilaahay markuu idin abuurayay uu bilaash dheel inuu idin abuuray? yah, miyaad u malayseen? oo aan xaggayo ladiin soo celinaynin, oo aan laydin xisaabinaynin? ma waxaad u malayseen in laydin abuuray dheel inta laydin abuuray sida adduunka laydinkugu daayey, oo aanan laydin soo dejinin dastuur aada raacdaan oo aad ku dayataan oo ifiyo noloshiina? haddaad guursanaysaan, haddaad ganacsanaysaan, haddaad wax dhisanaysaan, haddaad isbooqanaysaan, haddaad noolaanaysaan, bal haddaad cunaysaan ood cabaysaan, bal haddaad sheekaysanaysaan, aragtida waxaa ka yaala, sharci baa ka yaala, islaamkeena uu yeelay. cali ibn abi aalib
karama allahu wajha waradia allahu canha ayaa wuxuu leeyahay xabiibkeena oo cali wuxuu ku dhahayaa salى اllahu alayhi wasalam wuxuu ku dhahayaa caliyow ha raacinin fiiro kale ha raacinin haddaad aragtid qof dumar ah aan kugu jinsi ahayn haddaad cawradeeda aragtid ishu kaaga dhacdo aragti kale ha raacinin maxaa wacay fainamaa laka اlأulىa tan hore lagu xisaabin maayo adaa leh walaysat laka اlآakhira tan dambese adigu ma lihid tan dambe waa korkaaga waa xujo waa lagu qorayaa waa dembi yaa la dhahayaa waa cali ibn abi طaalib ayb jariir ibn cabdillaahi saxaabigan kale radia allahu canhu ayaa wuxuu leeyahay waxaan weydiiyey xabiibkayga salى اllahu alayhi wasalam ku sali xabiibkiina ayaa waxaan weydiiyey can nadrat اlfajأة aragtida kediska ah waad soo baxday indhahaad kor u qaaday ibliis baa indhahaagii wuxuu ku riday cawro qof qaawan baad aragtay gabdhahaan iska soo dharagtay dee yah muraafaya banaanka ayay ishaadii ku dhacday wuxuu i amray buu yihi wuxuu i amray markaan fiiradaa weydiiyey wuxuu i amray in aan leexiyo ishayda inaan markiiba laabo ishayda marna wuxuu leeyahay laab ishaada mar haddaad ishaadii wax ku aragtay laab mar kale ha fiirinin ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa kariimka ah qul lilmuؤminiina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika azkaa lahum in allaha khabiiru bima yasnacuun waqul lilmuؤminaati yagdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna muminiinta iyo muminaadkaba u sheeg indhahooda inay laabaan hadday wax arkaan markayba indhaha inay laabaan u sheeg inaanay sii raacraacin maxaa wacay midda horey leeyihiin midda dambe ma laha indhahooda ha laabaana kadibna farjiha xifdiyaana taasaa u khayr badan una wanaagsan adduun iyo aakhiro hadday saa yeeli waayaan ilaahay wuu arkaa wuu og yahay wuuna la socdaa waxa ay samaynayaan so ilaahay marka waa na ogsoon yahay dadkii labay u kala baxayaan qaar ilaahay ka baqa oo aayaddan iyo aayaadka kale ee faraha badan ee qur-aankeena uu inagu boorinaya inaan indhaha laabano iyo axaadiista rasuulka qof qaata oo u hogaansama sharciga ilaahay iyo amarka ilaahay iyo amarka awaamirta islaamka iyo nin faajir ah oo faasiq ah mujrim ah oo ku xadgudba labadaasaa loo kala baxaya kan hore gabadha wuu arkay ama gabadha wiilku way aragtay ma allaale markay arkaan wuu ka helay runtii marka hore indhahoodu indheheeday laabaysaa ama indhihiisu laabaya wuuna ka helay runtii maxaa wacay qalbigan annaga ma xukunno qalbiga wuxuu ku jiraa baa layihi faraha laba faroodoo faraha alle ah subxaanah ayuu ku jiraa siduu doonu u gedgediyaa marka quluubtan waxbaa gaaraya